السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الهوسو دوادا عارض ميديا برو يوتيوب كسيدو قنانا فيسبوك عارض نيوز waxaan halkan idinku wadaagi doonaa 5 website oo aad iyo aad u faa'iido badan kuwaas oo ay tahay 2023 inaad ogaatid ama sidoo kale aad isticmaasho kamid noqdo dadka isticmaal haddii aad hore u isticmaali jirin marka barnaamijkan gudaha gali doonaa insha Allah website kooban ka bilaabi doona uuna cajiibsan waa Photopia waa website leh dhammaan toolskii Photoshopka waxa ku samaysan kartaa business cardska ID cardska logooyinka sidoo kale posterska boorarka waxyaabahaas ku samaysan kartaa sawirada ku edit gareysan kartaa dhammaan wuxuu leeyahay toolska Photoshop waxa uga maarmi kartaa Photoshop maadaama dadka aysan computer wada haysan sidoo kalena computerka aadan markasta xaafada ka qaadan karin markaas uu kula socon in waxa ka saaciida website-kan isticmaashin maadaama dhammaan toolska Photoshop ka leeyahay maadaama uu iskaga baahnaan inaad soo dejisid oo kaliya aad galaysid Google-ka isticmaalaysid ama browser-ka isticmaalaysid saasna waxa rabto edit gareysanaysid marka website-kan wuxuu noqday mid kamid ah website ugu fiican ee maanta dunida ka jira waa website faa'iidooyin badan leh wuxuu ka saaciidaa beddelka Photoshop in isticmaashid dhammaan toolska ku jira waa Photoshop-ka camal marka waxa lagu magacaabo Photopia linkiisa hoos soo dhigi doona website-ka waxa lagu magacaabo Slicer waa mid kamid ah website ugu faa'iidada badan website-kan wuxuu la mid yahay website lagu magacaabo background remover laakiin waxay kala duwan yihiin background remover waxa laga yaabaa in shayga marka background kuga saarto ay geesiisa ku haran wax shucaac ama madow iyo waxyaabahaas ay ka soo raacaan laakiin website-kan uu ka cajiibsan yahay kaas sawirka wuxuu uga jaraa background wuxuu uga reebaa si nadiif uga reebaa boqolkiiba boqol si nadiif uga reebaa ma jiro sawir uu soo raacina waxyaabo madow ama shucaac uu geesa ka soo raaci doono waxa lagu magacaabo website-kan Slicer asna wuxuu ka mid yahay website ugu fiican ee la isticmaalo website kale ee xiga waxa lagu magacaabo The Gnome Project wuxuu aad iyo aad muhiim ugu yahay dadka graphic designerska ama boorarka iyo waxyaabaha sameeya aad iyo aad muhiim ugu yahay maadaama ay ku jiraan milyaamaad icons ah oo dadkaasna ay inta badan ay isticmaalaan iconska isticmaalaan graphic designerska marka qaar waxa laga yaabaa dadka video editing-ka inay isticmaalaan marka waa website-kan waxa ku jira milyaamaad icons kuwaana la dhahaa idin muuqda icon haddii aad u baahantaa aan lahayn background gudihiisa gali The Gnome Project kadibna ku qoray magaca iconka waxa ku soo bixi doona 100 ku dhawaad oo icons ku soo bixi doona ka rabta ka dooran doonta marka website-kan waa mid kamid ah website ugu muhiimsan ee maanta la isticmaalo Quizlet asna waa mid kamid ah website ugu faa'iidada badan kaasoo ay isticmaalaan ardayda dhammaan waxa ku jira buugaagta manhajta su'aalaha ku yaala jawaabahooda ku jiraan haddii aad ku qorto buugga magaciisa kadibna aad raaciso jabtarka u baahan tahay su'aalihiisa inuu kaaga jawaabo waxa ka heli doontaa jawaabaha ka heli doontaa marka buugaag waxa jiraan hadda sida buugaagta manhajka Soomaaliya oo kale marka la fiiriyo haddii aad ku qorto chapter review questions maadaama chapterada isku mid ahaan meelaha laga soo kala qaaday si sax ugu heli maysid laakiin haddii aad su'aasha si sax ugu qorto wuxuu soo saari doonaa jawaabteeda sax ku soo saari doonaa inta badan way ku jiraan su'aalaha manhajka cusub ee Soomaaliya su'aalihiisa ku jiraan waa keegi kartaa halkaas laakiin waxaan kula talin lahaa inaadan u isticmaalin in aad su'aasha uga shaqeysato ee kaliya u isticmaashid inaad ku saxatid website ugu dambeeya aan ku soo gabagabeynaa waxa lagu magacaabaa Kalim PNG waxa ku helaysaa dhammaan sawirro caadi ah sawirka u baahan tahay isoo aalahan background qaybna background ka maqan tahay marka waxa ku baaqanaysa fursadii aad u background uga soo saari lahayd image-kan maadaama uu soo bilaa background yahay toos u isticmaali doontaa laakiin haddii mid background la soo waxay noqonaysaa Slicer iyo website-sina soo marto ama background remover marka asna waa mid kamid ah website faa'iidada leh ee maanta jira